waxaan ku noolay la anaga aan hoona Allah reer daahiriya maxamed abukar midna malaha bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa saxaafadda iyo cid kastoo muuqaalkan daawanaysa hadal badan uma bixin anaga shir baan noo socda shirkaasi hadda waxa furmay sabtidii hore insha Allah wiilka soo socdana soo gabagaboobaya laba saddex qodob baan rabaa inaan wax ka taabto shalay wadaha iyo leeyahay kaahin hadallo badan meel marba dhinac u dhacay buu sheegay wuxuu yiri waa wada noolay dawla saarad baan ku noolaayo kuma nooleen balidhiig iyo burco wadagu midha balidhiig iyo burco iyo saarad kala garan waay aan weyn baatay hadalkaaga hagaaji markaad hadlaysid oo marba karin ha ka dhicin adu hadalkaaga dariiqa qabsado anagu waxaan ku noolay la saarad anaga aan hoona Allah haddaan xudun ku noolay anaga ale demale reer daahiriya maxamed abukar midna malaha haddaan taleex joogo waa dhulka iyagii ceergaabo inta anaga dhulka iyaga dee anaga joogin iyaga kulabaan joogin shirka kale si fiican u habsamaya buu u socdaa hadday tahay odayaashan dhaqanka ismada hadday tahay cuqaasha hadday tahay aqoon-yahanka hadday tahay 3 shirkaas wuxuu u socdaa sidii ugu quruxda badneed waa ma dhaxalgala oo dadka fiican ka soo bixi doona warbixinta shalay igaad ismka afayeenka hadlayay waan isla ogeyn galin horaasan loo diyaariyay saasaanu la qabnaa cid kastoo golaha ismada wax ka soo baxana waa barnaamijkan soo dhismay oo meel soo saaray Allahumma musta'aan xaaladdu hadda intaasay marayaan marxuumka xalay intay Axmed Muuse oo dilay niman ay tol yihiin isla reeraha ah Ilaahay ha u naxariisto jannada firdawsa ka waraabiyo ehelkii qaraabadii oo ka dhintay sabir yaban Allah ka siiyo ninkii gacan ku dhilaha waa la hayaa dadku sidoo hadday istiyaar gareeyaan waxbay qabsan karaan ay u diyaar garoobaan inay wax wanaajiyaan oo ka dhibta geysta oo ku talagalo inuu wanaag sameeyo markii odayaashu way ka howlgaleen way soo qabteen xalay bay guura ku qabteen intaasina way degan tahay insha Allah waa la isugu iman doonaa qoladan marxuum ka dhintay mar diigan ku leeyahay idinkuna saasad ku warsugaysaan xaaladana waa dejinaysaan marxuumkaana Ilaahay ha u naxariisto nabadgelyada hadii lagu dadaalo oo qofkii dhib geysta markiiba ay dadka uu ka dhashay xil iska saaran dadku wax ma qaban kari waayeen hadaan wax la sagran waa mahadsantihiin anaga shir baan noo socda shirkaasi hadda waxa furmay sabtidii hore insha Allah wiilka soo socdana soo gabagaboobaya arinta gacanta lagu hayr si soo go'aamada u soo baxayaan go'aamana soo bixi doona dhaqso waxaan rabaa magaalada Laascaanood dadkan faraha badan ee gobol SSC reer SSC la yiraahdo inay ilaaliyaan nabadgelyada waa aad ilaalisa amniga gudaha